munaasabadan oo haytay toos heer sare lahayn ayaa simay isla markaasna iyo ka qalan bedeladayeen in ku badan 100 arday oo baratay kulliyada Shalduun iyo kale ka gobodii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waana dufcadii afraad ee ku qalan jibida jaamacadda Koonfurta Soomaaliya munaasabada sida quruxda badan lahayn ayaa simay ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Lafta Gareen xubno ku tirsan golaha wasiirada barofesoro waalidiin iyo qaybo kale ee bulshada ku qayb galayaalka munaasabada ma iyo hambaliye andarena ardayda geeka qalan bedeladaasi iyagona ka amaanay sidii han ka dhabar adeegeen inta geeka heerkan iyo hadeeran mayniyo ka dhiirageliyeen inta sii wadan dadaalka walbarasho salanka duul horumarinta walbarasho oo horey madaxweyne Abdicasiis Lafta Gareen uu san sheegay gudoomiyaha jaamacadda Koonfurta Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji aan ka horeyntii sharxaad ku biyo kulliyado iyo bardeen ardaydu geeka qalan bedeladaasi runtii wali banigata farxad aan kooga korno runtii wali banigata guul la taaban karo maadaama jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo hay'ad jaamacadda guuleeyay Koonfur Galbeed Soomaaliya ku suubi geeka iyo dawal deegaanka munaasabadii afraad ee qaran bedelashada oo runtii ka qaran bedelayaan arday kulun dhaafaysa boqol iyo 3 arday ee runtii waliba meelun ka hambaliyay anoo ka hadalay magaca kiikay iyo kan jaamacadda Koonfurta Soomaaliya hambaliye iyo bogaadin iyo waliba daray dhammaan ardayda qalinjibiyayta oo runtii iska jaran ilaa ay dhowr qaybood oo hata meelun ka sheegay oo ay tirada badan kulliyada caafimaadka ku been wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Cusmaan Malaak Kolkooliyo iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John oo ku qayb galayaalka munaasabada yaa dhinaca ku hadlay goobta mayniyo ku hadlayna muhiimadda yeelata walbarashada shakhsiyaadka waqtiga dheer hageli juhdiga hageli isla markaasna la hambaliyayo waana la do'ay muhiimadan taaso mayba sinka hambaliyaynaha ardayda boqol qof qalan jibintiin iyo qalan bedelashadin terminology isticmaalaan bas sinka hambaliyayna mayna dareemana in geedkiisu ku heli doono meelihiisa geedka roogdan isin sii wada doontan walbarashada ilaa iyo isu bedelasaan xeerarka dambe Dr. Reidki iyo PhD holderki intii bedelasaan intii wada doontan filaad badaas u bedelayo meelun oo mayba singaalo doona garab iyo in sinagana dhiirigeliyaan shakhsiyan ka golaha wasiirada ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo hogaamiyo madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen mayba in ata farxad goone waa jaamacadda Koonfurta jaamacadda ay meel ku yaabahay diinida hoogan meelun iyo board of director ka gudoomiyaasha Abdulfataax injineerka Dukharay in oo maybe in kuwan hayn laakiin ana jaamacadda ay goone ka ata jaamacaddii alla lamada kun etumil lamadi aan ku qaadayo nursing diploma nursing associate waxaan mahad ballaaran ku soo jeedinaynaa haddii lahayd jaamacadda Koonfur Galbeed iyo boorkeeda ugu horeeya gudoomiyaha jaamacadda barofesorada dal iyo dibad joogaan dhammaantiin shaqo fiican ayaad qabateen waan idin bogaadinaynaa shaqada ummadda u haysaan tan annaga u hayno waa isku mid insha Allah taala haddii ilaahayd waxaan idin ballan qaadayaa anoo ku hadlayo magaca wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wax Allah wixii wasaaradda ugu baahataan in la fududeyn doono sida haddaba idin fududeyn insha Allah taala waxaan kala idin ballan qaadayaa dhammaan ardayda maanta qalin bedelatay fakultiyada kala duwan ee ka barteen jaamacadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha liistooda inaan geedoona haddii ilaahayd muushidii loo helo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo hambaliye iyo bogaadin andiri ardayda geeka qalan bedeladaasi maynu soo dhiirigelin iyo sii wadan dadaal jawal barasho maanta inaan la qaybsano farxadda ardaydan qalan bedelatay oo ka qalan bedelatay jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo 103 arday ah inaan dareenka anaga tusno oo muujino inaan kula faraxsanahay inaan ognahay inaan maxay ahayd farxadda la qaybsano waa muhiimadda ugu badan oo inta isugu nimid waxaan kaloo dhiirigelinaynaa oo wax weyn noo ah oo sharaf noo ah in waxbarashada aan dhiirigelino nin kastoo arday ah oo reer Koonfur Galbeeda oo waxbaranaya aan waxbarashada ku dhiirigelino saa la socotaan waxa ugu weyn oo muhiimadda ah waxa weeye waxbarasho haddaysan jirin ma laga baxaayo jahliga
ma laga baxaayo faqriga, ma laga baxaayo gumaysiga, ma laga baxaayo dulliga, ma laga baxaayo indhala-aanta iyo maxay ahayd dabkudhicidda lagu jiro maanta lagama baxaayo. waxay u baahan tahay wax kasta oo la qabto waxaa hormuud u ah waxbarashada. dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa sheegay intii dawladdu soo hogaamiyo iyo waddo qorshe lagu hormariyo sida laga helo lahay goobo walbarasho oo tayo leh. annaga haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan dhiirigelinaynaa oo soo dhaweynaynaa bahda waxbarashada iyo in la kor loo qaado waxbarashada lana tayeeyo waxbarashada Koonfur Galbeed insha Allah. sida aan horay u ballan qaadnayna waxaan samayn doonaa inaan qayb ka noqono oo aan bilowno qoristii alifmaayiga oo aan rabno haddii ilaahay yidhaaho 2 bil kadib ilaa iyo abriil ama juun ama juulaay midkood inaan furno oo la bilaabo dhigistii alifmaayiga ayadana qaybta ugu weyniyay ka mid tahay. waxaa kaloo mas-uuliyadeedana saaran in ardayda dadka reer Koonfur Galbeed runtii waxaa jiro daruufo iska tiro badan inaan hergelino oon dhaqan gelino iskoolo ay dawladda leedahay oo lacag la'aana oo ardayda Koonfur Galbeed oo aanan awoodin iskoolada private-ka inay tagaan ay tagayaan ay wax ku baranayaan suurtagelinayna insha Allah haddii ilaahay yiraahdo sanadkan aad iyo aad u mahadsantihiin. runtii sharaf weyn ay ahayd maanta dadka reer Koonfur Galbeed u soo hoyatay jaamacadda Koonfurta Soomaaliya. waxaan leeyahay hambalyo bilowgii aad bilowdeen waa ogtihiin waxbarashada Soomaaliya marxaladda ay gaartay iyo meesha laga soo bilaabay markii uu burburay kacaankii iyo dawladdii jirtay adeegyadii bulshada oo dhan ay gacanta ka baxeen. waxaa si gooni ah gacanta ugu hayay dad waxbartay, dad ganacsato, dad muwaadiniin, dad wadaniyiin oo iyaga isxilqaamay oo si gooni isu xilqaamay oo ay ka mid yihiin dadkii abuuray waxbarashada oo aqoon-yahanada ahaa, professorada lahaa oo iskooladii private-ka ahaa sii hayay gacanta ku hayay intii laga helayo dawlad dhamaystirto baahida waxbarashada. maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Koonfurta Soomaaliya iyo shahaado sharaf iyo guddoonsiin madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen taas oo ku turjumaasi dadaalkiisa la garab suriyay bahda walbarashada. jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ma yaqaan jaamacadooyinka kiyada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waa hadii afraad ee ku qalabeysan tanqiyo markii la aasaasay jaamacadda Faysal warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo.